madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan iyo wafdi ballaaran oo hogaamiye wafdiga madaxweynaha waxa kamid ah xubno wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha taliyayaasha ciidamada booliska Soomaaliland iyo xubno kale ayaa maanta xadhiga ka jaray mashaariic kala duwan oo ay fuliyeen dawladda hoose degmada Berbera iyo dekada Berbera mashaariicdaas oo ugu weyn garoonka kubadda cagta ee magaalada Berbera laga hirgeliyay wadooyin iyo waliba dhismayaal kala duwan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaan ayaa soo jeediyeen garoonkaasi loogu magac daro duqa degmada Berbera Abdalle Maxamed Cali sidoo ka hadlayay furitaankii garoonkaasi ayuu tilmaamay waxqabadkan ka muuqda degmada Berbera oo sumcad weyn ugu fadhiyo xukuumaddiisa iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland waxaanu yiri horumarka ee la taaban karo ee wax ku oolka ah ee ka hirgalay gobolka iyo degmada Berbera garoonka aynu maanta joognaa waa garoonka aynu aragtay leeyahay waa garoon magaciisa sharaf iyo qiimo u soo horeeyay dadka waa garoon dhalinyarada dhiirigelin weyn u noqonaya iyo sportiga iyo horumarkooda waxaa halka kan oo ay sharaf weyn ah inaan soo jeediyo in loo bixiyo beer Cabdalle loo bixiyo madaxweynuhu sidoo kalena waxa uu xadhiga ka jaray waxa uu maamulka dekada Berbera uga mahadnaqay wadooyin dhismayaal iyo waliba qalabyo kala duwan oo cusub oo ay soo bandhigeen oo uu xadhiga ka jaray hadda waxaan ku soo doonay madaxweynuhu loo furo toban qalaba oo laba jiraan iyo baawur transportka oo saddexa waan soo bilay sanadkan imika dhammaadka ku jira in October marayno January ila October madaxweyne faleed oo xadhiga ka jaray intii ay munaasabadaasi socotay sidoo kalena waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Ali Saciid Reegal oo iyaguna soo dhaweeyay mashaariicdan kala duwan ee ka hirgalay degmada Berbera iyagoo tilmaamay in isbedeladani ay hormood ka tahay dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Silaan gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Salaadaan duqa degmada Berbera Abdalle Maxamed Cali xildhibaan Saciid Cartan ayaa iyaguna dhamaantood soo dhaweeyay mashaariicdaasi uu garoonka ugu weynaa magaaladaydii waxa ka muuqda isbedel weyn way ballaaratay horumar ballaaranna way ka qabsoomeen waan u haniyeynayaa waana u hambalyeynaya farxad bay noo tahay inaad noo furto garoonka weyn ee u dhisan standardka caalamiga ah ee ay dhiseen mas'uuliyiinta maayarku ka yahay intii ay munaasabadaasi socotay ayaa madaxweynaha Soomaaliland shahaadooyin siiyay mas'uuliyiinta dawladda hoose dekada iyo gobolka oo ay wasaaradda ciyaaruhu ku maamustay waxqabadka iyo waliba gacanta ay ka geysteen garoonka kubadda cagta ee Berbera ka hor intii aanu madaxweynuhu Berbera soo gaarin waxa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalooyinka isku xidha Berbera iyo Hargeysa ee Dacarburuq iyo Abdaal dadweynaha aad u fara badan oo si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay madaxweynuhu ka hor intii aanu xadhiga ka jarin mashaariicdaasina waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland عبد الكريم سعيد صالح هون كيبل TV Berbera.